haddii aad ahaan lahayd mid ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed kadibna aad shaqaale u baahatay si aad u heshay shaqaalaha ku habboon shaqada iyo booska aad u haysid waa inaad doorataa shaqaalaha ugu fiican ee sideeda shaqada nooga soo bixi kara si aad taa u samaysidna waa inaad shaqaalaha u dirtaa inay soo xareystaan CV-gooda iyo mid kasta iyo informationkiisa haddii lagu soo hordhigi lahaa waraaq CV oo sidan u qoran iyo waraaq CV oo sidan u qoran oo black and white tii ayaa dooran lahayd markiiba waxay kuu riixaysaa maskaxdaadu inaad akhriyo dooratidna waraaqda sidan u qoran laga yaabaa inay kuu soo xareystaan shaqada video aad u tiro badan aanay macquulna ahayn inaad waxaas oo CV wada akhriyo laakiinse kaliya waxaa kusoo jeedanaya ambaad u carari doontaa dhinaca CV-da sida fiican loo diyaariyey ee kunka CV kasoo dhex muuqanaya haddaba haddii aad hore ugu diyaarin jirtay CV-gaaga amba marka lagu dhaho waraaq CV soo xareyso waraaqahan caadiga ee black and white-ka ah hadda taa waa laga guuran muuqaalkeennan ayaan kugu tusi doonaa sidaad uga dhigi lahayd waraaqdada CV-ga aad meel kasta ku xareynaysid mid ka dhex muuqata dhammaan CV-da kale ee bartaa lasoo gashaday markastoo ay waraaqada soo jiidasho noqoto waxay kusii riixaysaa qofka CV-ga akhrinaya amba CV-ga loo gudbinayo in waraaqdaada ka dhigo kuwa ugu horeysa ay akhri laga yaabaa markuu CV-gaagu sidan u qorayo inay jiraan CV ka fiican oo ka tayo fiican oo qof ka aqoon badan leh uu soo xareystay laakiinse waxa macnaha u yeelaya ma aha wax ku dhex qoran waa siday u qoran tahay iyo sida soo jiidashada ugu yeeshay ka hor intaynaan muuqaalkeena gelin waxaan jeclaan lahaa inaad kanaalka subscribe gareysid muuqaalkana keliya aad like saartid adoo aan wax kalaba qaban haddaba aynu gudagala muuqaalkeena maanta ee samaynta muuqaalkan waxay ugu dhaliyay kadib markii aan Facebook ku arkay anoo iska dhex soconaya muuqaal spawner ah oo lagu xaysiinayo amba xaysiintiisu tahay in $8 laga qaadayo kadibna lagu sameynayo CV template sidaan oo kale u samaysan weliba sidaan aynu ku samayn doonaa ay ka qurux badan tahay habka aan soo arkay runtii way fiican tahay in waxyaabahan oo kale jiraan dad ku shaqaysta ay weliba jira website heer caalami oo laga shaqaysto laakiin marka si loo eego waxay u egtahay dhac bulshadeena Soomaaliyeed ee wax badan aan fahansanay lagu dhacayo maadaama dhammaan dadkeenu markay CV xareysanay ku xareystaan habkii kale ee qoraalka caadiga ah ee black and white ka ah marka lagu dhaho habkan ayaa lagu diyaarinayaa qofka runtii wuxuu yar doorbiday inuu habkan helo laakiin dadku ma fahansana sida loo sameeyo iyo barta lagu sameeyo haddii aad dadka ku tiraahdid waxa lagu sameeyaa halka aad ku diyaarisid ta kale ee qoraalka caadiga ah ama black and white ka ah oo office word-ka ayaa tan lagu sameyn kartaa tii hore aad qortay ee qoraalka caadiga ahana office word-ka ayaa ku samaysay tanna isla isagiin baa lagu sameynaya runtii dadyo badan oo kamid ah dadyoogaasi kuma aamini doonaan waxaan bay ku qaracayaan kaliya inay arkaan iyadoo oo la sameynayo saasay tahay muuqaalkan ayaan ugu talagalay inaynu dadka ku caawino sidoo kale dadyoga kale ee iyaguna lacagaha aadka u fara badan ku qaadanaya waxaan oo kale ah ee aan waxbana ahayn hadda aad uga soo guuri doontid haddana isticmaali kartid intaan arrintaa bilaabin sidoo kale waxaa jiri karta dad aan office work aan waxba uga baxsanayn kuwaas oo meelaha aynu taabanayno iyo tooliska aan adeegsanayno runtii aan wada gaari karin amba aan wada samayn karin saas ay tahay waraaqdan ayaan xagga hoose ku dhigayaa kadibna waa la digi doontaa iyada ayaan isku bedeli doontaa haddaba marka waraaqdan xagga hoose ku dhigo office work-kaaga ayaad ku furi doontaa kaliya sawirka iyo magacyada iyo ciwaanada information-kaagii ayaad ku buuxbuuxin doontaa waa haddii aanad awoodin inaad habkan samaysid sidoo kale si aanu muuqaalkeeda inooga dheeraan waxaan isku dayi doonaa inay soo koobno oo optionska halka laga helo iyo se u samayn lahayd oo keliya soo koobno laakiinse way adagtahay inaynu point to point haddii aynu istaagno muuqaalka waxaa laga yaabaa inuu 40 minute gaadho haddaba muuqaalkeena aan gudagalle saan hore kugu sheegay maanta muuqaalkan waxaan rabaa keliya inay istusno halka aad tegi lahayd iyo sidoo kale saa u samayn lahayd laakiinse haddii aad u baahan tihiin inay point to point u dul istaagno option shape waxaan ka soo samayn doonaa muuqaal kale oo kaliya quseeya dadka office work-ka fahmaya laakiinse waxaan rabaa inaynu ogaano intii ayaad fahansantahay office work-ka haddii aad si fiican wada fahansan tahay ila daawo muuqaalkan haddii aanay waxba kaaga baxsanayn deg dogmatiga hoose ayaan kuu dhigayaa kadibna marka telegramka iyo kala soo dhex tegtiin office work-kaaga la tag sawirkan iska bedel magacyada iyo ciwaanada iyo maxay hayto wixii information meesha ku jira information-kaaga caadiga ah ayaad ku bedelanaysaa haddaba wayna inoo soo kicisaa Microsoft Office Work-ka kugu jira laptop-kaaga haddaba Microsoft Office Work markay inoo soo kicisid waxaad inoo tegi doontaa page cad si aan rabno horta inuu sameeyno waa sidan oo kale sidanna hadda waxaan ku sameeyay isla kan gudihiisa ayaan ku sameeyay habkan kulay waan ku siin doonaa tan ayaan ku siin doonaa kadibna halkan sawirkaaga ayaad ku bedeli doontaa magacaaga xirfadda aad rabtid waxaan u bandhigaysid halkan ay ku qoran tahay profile-na wax weeyaan information yar oo ku saabsan adiga halkan waa ku tagtay xawiiliga la soo xiriiray halkan waa education sector-kaaga iyo waxyaabaha aad meelaha kala duwan heerarka soo martay intan oo dhan waad arkaysaa inaan wax isku seeyaan ku qoran laakiin adigu wax harka saxan ayaad adeegsan doontaa intan oo ah professional skills-kana
waa xirfadaha aad sida gaarka u taqaanid intaas ayaad ku qori doontaa. Hadhow dib ayaan ka sharaxi doonaa aynu tagno waraaqaad. Haddaba hadda kaliya wuxuu ma rabaa inaan si toos ah ku tuso waxyaabaha asaasiga ah ee ay tahay inaad fahantid. haddaba marka aynu waraaqda kale imika arkayno inta waraaqda kale arkayno xaggan waxaad aragtaa inuu sawirku haysta gidaarka amba halkaas buu ka bilaabmaya dhinacaas oo kale kaaga bilaabaya halka uu qoraal ka bilaabaya say taas inoogu suurto gasho ayaan hadda ku tusi doonaa oo ta ugu muhiimsana. haddaba hadda imika qoraalkan haddii aan israahdo qor kaliya halkaas uu ka bilaabmaya haddii aan sawir soo gelino sawir halkaas uu ka bilaabmaya bartaasna ku dhamaanaya. laakiinse sidee ayaan qoraalkan halkan uga soo bilaabi doonaa si uu sawirka geeskan igu qabsado amba uu shape-ku geeskan igu qabsado aan ku tuso. haddii imika aan shape tago aan israahdo shape halkan saar haddii imika tusaale ahaan oo kale aan shape-kan soo qaato shape-ku gidaarka ay qabsan maayo ee kaliya dhexdaas ayuu istaagaya. haddaba si aan arrinta u xaliyo amba aan qoraalkan oo kale halkaa iga soo bilaabmo haddii aan shape-ka oo ka tagno waa inaan sameeyaa habkan qoraalkan halkaa kama bilaabi karo laakiinse waxaa sida caadiga inuu bartaa iga soo bilaabma. haddaba halka ugu horeysa waxaad iman doontaa halkan baad iman doontaa ay ku qoran tahay looyad kadibna halkan baad iman doontaa page emergency ay ku qoran tahay kadibna mid walba meel ayuu kaaga bilaabi doonaa mid dhexda mid intaa yara dhexe halka ugu hooseysa ayaad iman doontaa ay ku qoran tahay customka. haddaba customka marka timaadid afarta dhinac waxaad ka dhigi doontaa zero ayaad ka dhigi doontaa oo macnaheedu yahay gidaarka ka soo bilaabmo afarta dhinac zero baa ka dhigi doontaa. haddaba afarta dhinac marka zero ka dhigtid xaggana ku ahaado portrait ku ahaado. haddaba waad aragtaa qoraalkii wuxuu iga soo bilaabmay gidaarkaas ayuu iga soo bilaabmay. qoraalka markuu gidaarka kaaga soo bilaabmay waa in ahaataa waraaqda aad ku diyaarinaysaa waraaq A4 si kuwiyagiin oo kale oo kale. waraaqdaadu markay ku ahaato A4 waxaad samayn doontaa inaad iska yar fogeysid kadibna marka iska yar fogeysid waxaad dooran doontaa shape-ka iyo halka ka bilaabi lahayd. kaliya wuxuu ma ku tusayaa shape-iska iyo sida adeegsan lahayd sawirka iyo sida u dhexgelin lahayd qoraaladu iyo inta kale waad samayn kartaa. shape-ka ayaad dooran doontaa shape-iska marka tagtid kan ayaad soo qaadan doontaa kan marka soo qaadatid ilaa halkaas ayaad ku bilaabi doontaa. halkaas ayaad kasoo bilaabi doontaa intaas oo kale ilaa iyo dhammaadka hoose iska yar fogeyno ilaa iyo dhammaadka hoose ayaad gaadhsiin doontaa. marka intaa shape-ka soo qaadatid shape-kan waa inuu ku ahaadaa color fadhiya amba maxaa ahayd hore color hadhow soo jiidasho u yeeli kara waraaqdaada intaa yarna waa kasoo kici kartaa. marka shape-kan waxaad adeegsan kartaa wixii ku saabsan macluumaadka adigoo kale sawirkaaga intan baad soo gelinaysaa contactiga intan educationkana intan skillskana intan page-kana waxaan ku tegi doonaa intaas sarna waxaan ku tegi doonaa profilekaaga iyo wixii adiga kuu qusay magacaaga iyo xirfadda aad rabtid ku shaqaysid sidoo kale macluumaadka ku saabsan iyo shaqooyinka ka soo baxday. halkan oo kalena interestiga iyo waxyaabaha xiiseysay sida tan oo kale u qoran tahay imika oo kale imika tan oo kale u qoran tahay intaas oo dhan waxaan uga tagnay sawirka intana waa contactiga iyo waxyaabahaas oo kale. halkana waxaan ugu tagnay magaca iyo wixii ku saabsan laakiinse xagga yaani markasta caddaan ahaan haddii xaggan caddaan ahaato qoraalkii iyo waxyaabihiiba kaa xumaanaya. haddaba waxaan tegi doonaa haddana picture-ka ayaan soo qaadan doonaa. picture-ka marka soo qaadatid picture-ka ayaa ugu yar hawl badan. picture-ka waxaan rabnaa inuu shape-ka dabadiisa ka soo muuqdo oo maxay ahayd hore uu inoo noqdo picture-ku mid qurux badan. picture-kii kaas ayaan inoo soo helay amba kaas ayaan soo qabtay kadib markaan picture-kii soo qabtay xaggaas ayaan ka dambeysiyey. haddaba marka imika xagga ka dambeysiyey waxaan rabaa inuu picture-ku halkan iga soo dhex muuqdo amba intana uu leekaado. waxaad tegi doontaa ay ku qoran tahay crop marka tegtidna waad leekeysiin doontaa intaad u baahan tahay ayaad leekeysiisanaysaa. picture-kana waad ku beegaysaa shape-kaagiina waad sii garanaysaaba noocu ahaa. sidoo kale shape-ka picture-ka afar geeskana waad ka dhigi kartaa waxaanad ka dhigi kartaa habkii yaraaye kale ee quruxda badnaa oo isagu xaggan baad ku haysataa haddii aynu isaga u noqono xaggan noocu ahaanayo crop-kiisu noocu ahaanayo halkan baad kasii tegi kartaa kaas baan ka dhigan karaa laftirkiisa
waana xaggan baan kasoo hormarinayaa oo wax rabaa inuu dusha sare soo maro uu kasoo dhex muuqdo isaga. Cropka aad picture ka dhigaysid amba picture nooca ku ahaanayana halkaas aad kasoo saaraysaa picture format ka tagaysaa. Xaggan baad shape-kiisa kasoo saaraysaa. Cropkana dhinacan baad ka siinaysaa position-ka iyo maxay tahay haddii uu xagga hoose ka marana tan ayaad kasoo sixi doontaa oo taas unbaad tigi doontaa. kadibna picture-kii marka aad soo saxatid halkan qoraalkan ayaa ku haray inaad halkan content-kii geysid. content-kii soo gelisid picture-kaagu sawirkiisu waxa uu xagga dambe ka yahay ayaa fiican inaad intan oo dhan u isticmaashid. kadibna kalarada waxay ahaadaan kalaradu wax qurux badan inay ahaadaan kuwo isku suggest garaysan oo haddii aad kalar isticmaashid kalarka aad dhowr jeer oo dambe dib ka isticmaali kartid oo maxay tahay si ay meeshu u noqoto wax yar qurux badan. xaggana waa sagaranaysa waa inta content-ga iyo waxyaabihiisaas oo kala ahaa ayaan ka dhigayaa. haddaba xaggan si aan kalarka u saxo waa inaan soo qaataa kalarka halkaas igu jiro oo kale kalar huruuda oo maxay ahayd oo leey sawirkayga u soo dhow. kalar huruudka markaan soo qaato waxaa rabtaa waxaa hareeraha outline baa hareeraha ka xidhan. outline-kana waxaad kaga jari kartaa halkan ayaad kaga jari kartaa oo no outline ah halkaas baad ka dhigi doontaa no outline. kadibna waa inay kalarka iyo kaas iskaraan amba in kalarkan ayaad kan ka dambaysiin kartaa. haddaba marka inta taa kaga nimaadno waxaynu rabnaa inaynu haddana xaggan dhigano haddaba marka intaad fahantid wax kale oo aad u baahan tahay inaad sii daba geshid ma jirto aan ka ahayn inaad heshid iconiski yaraa aad soo dhigi lahayd halkan form callka calaamadiisa yareed iyo waxyaabaha saas oo kale ahaa. laakiinse haddana marka labadaas oo keliya iska saxdid inta kale oo dhan labadan bay sii tuqusayaan. waatan hore kugu sheegay haddii aanan ka baqayn inuu muuqaalku dheeraado point in dul istaagi lahayn laakiinse hadda markasta oo aan mirsi dul istaago muuqaalku sii dheeraanaya. laakiinse haddii aad u baahan tahay in habkan oo kale samayso horta habkan waan mari kartaa oo halkan ayaad kasii anbaqaadaysaa. sidoo kale xagga hoose documentiga ayaan ku dhigi doonaa amba description-ka halkaas ayaad kala digi doontaa. haddaba iconiskana waxaad ka helaysaa iyun xaggan baad ka helaysaa iconiskana waa ku halkaasi ku jiraan kaad u baahan tahay iyun baad search garaynaysaa. haddii aad phone call-ka u baahan tahay calaamad yare email-ka waxyaabahaas sidoo kale halka lagala soo xiriiraayo. haddaba si aynu soo diyaarino muuqaalka xiga iyo wuxuu ku saabsanaan doonaaba inaynu sharaxno iyo inaynu dhaafno oo aynu xaggaas iyo excelkii qabanno aynu ku ogaano committee-ga hoose ee muuqaalkan haddii uu ku saaciday muuqaalkani iyo haddii kaleba waxay ku saacidi doontaa waan ogahay waraaqda kale ee taala documentiga taas ayaad ku bedelin doontaa. aad iyo aad waa mahadsantahay. fadlan muuqaalkan like garee haddii uu muuqaalkan ku saaciday faalan ugula wadaag iyo sidoo kale habkaad u baahan tahay inaan ugu bedelo amba ugu soo diyaarino muuqaalka xiga.